بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. waxaan qaadanaynaa cashirkanaga toddobaad. Hore waxaan usoo qaadanay 6 cashir oo kan ka horreeyay ayaan soo duubnay. Waxaan duubaynaa cashirkanaga toddobaad wuxuu ku saabsan yahay formatting text, sida farta loo qurxiyo. Barnaamijka MS Word-ka marka aad wax ku qoraysid waxa la isku dhaafay waxaa weeye hab qoraalka. Marka waxaan doonaynaa inaan wax ka aragno qaababka kala duwan ee farta wax looga bedelo. Sida halkan ka aragto waxaa noo diyaarsan ilaa 5 qodob oo aan rabno inaan caawa tusaale ka bixino. Qodobka u horeeya waxaa weeye change font, sida fontiga loo bedelo farta markaas wax kugu qoran yihiin sida iskaga bedeli lahayd. Qodobka labaad waxaa weeye font size, sida cabirka farta ayadana hadday waaweyn tahay aad u yareyn lahayd oo kale weeye, iyadana waa cabirka ayaad wax ka bedeleysaa. Text highlight color waa qoraalka background-iga ka dambeeya inaad kalar saari kartid, qoraalkaada gadaashiisa dambe inaad saari karto kalar. Font color waxaa weeye iyadana inaad qoraalka laftiisa ama farta lafteeda aad midab ama kalar saari kartid. Bold waa inaad farta cayilin kartaa, farta waaweyneyn kartaa, madoobeyn kartaa. Italic waxaa weeye inaad tiftif ka dhigi kartaa iyo inaad hoos ka xariiq ku samayn karto farta oo far hoos ka xariiqan ka dhigo. Intaas ayaan fiirinaynaa, waxaan la soo baxaynaa warqad cusub. Halkaan oo kale markaan joogno waxaan ku bilaabaynaa sida aan qoraalkan u bedeli lahayn oo fontiga aan uga bedeli lahayn nooca hadda uu yahay. Marka waxaad xasuusnaanaysaa mar walba aad rabto inaad qoraal wax ka bedeshid waa inaad har saartaa. Har waxaan ka wadaa inaad saas oo kale yeeshaa oo doorataa. Halkan ayaa marka farta laga bedelaa. Home tab-kan ayaad tegaysaa, kadibna halkan intaan aad u jeedo oo dhan waxa ay ka shaqeysaa farta noocyadeeda kala duwan oo dhan. Intaan ayay ku kooban tahay oo wax kaga bedeli kartaa. Marka saan tahay oo taan harka u saarato, halkaas carabka yarka ee soo jeeda ayaad ku dhufanaysaa. Halkan waxaad aragtaa waxaan dhan waa fonts ama waa kalaro. Sidaa aragtana qoraalka harka noo saarnaa waxaad arkaysaa inuu is bedelayo oo marba farti aan dul tag nooceeda uu yeelanayo. Nooceeda ayuu yeelanayaa. Marka kuwan halkaan ayaad soo jiidaysaa, midii ku qanciso waxaana fonts ah ayaad ka dooranaysaa. Haddaan tan ku fiiriyo sida aragtaba qoraalka waa isbedelay, fonts-kan sidii uu ahaa maahan. Haddii aad haddana sii bedeshid oo tan oo kale aad ka dhigto waxaad arkaysaa inuu qoraalkii noocaas isku bedelay. Haddaad sii bedesho marka hadba midda adiga ku qancisa ayaad halkan ka dooranaysaa. Waa change font, fontiga ayaad iska bedeshay. Midda hadda tan oo kale haddaad geyso waxaad aragtaa inuu aad bold u noqotay fartaas oo aad u madoobaatay. Taas marka waxaa la dhahaa farta oo la bedelay. Qodobka noogu xiga wuxuu ahaa baan u malayn. Qodobka noogu xiga wuxuu ahaa font size, sida farta cabirkeeda loo weyneeyo ama loo yareeyo. Ayadana sidoo kale waxaa weeye inaad har saaranto. Hadda har baa noo saaran, marka farta halkan ayaa ka bedeli kartaa ayadana. Hadda 11 weeye fartan. Haddaa carabka yarka furto waxaa ka dhigi kartaa 12. Waxaad arkaysaa inay badanayso weynaanayso fartaas kore. Farta kore ayaa ah midda harka noo saaran yahay. Waxa aad ka shaqeynaysaana mar walba oo wax iska bedelayaan waa midda harka saaran yahay. Haddii aad marba nambarka weyn sii tagto waxaad arkaysaa inay sii weynaanayso. Haddii aad kor u noqoto yareysana way yaraanaysaa. Waa font size, cabirka farta ayaa wax ka bedelaynaa. Marka waa yaraatay. Qodobka naga kaleento waxa uu asna ahaa highlight color, sida qoraalka background-giisa har loogu sameeyo ama kalar loogu sameeyo. Sidoo kale waa noo doorantay, weli farta ayaa noo dooran. Halkan ayaad tegaysaa, tan ayaad tegaysaa, kalaradan mid ka mid ayaad dooranaysaa. Waxaad arkaysaa in qoraalka farta buluug yahay, gadaalna uu ka dambeeyo kalarkaas binkiga ah ama buluugga ah ama gaduudka ah. Hadba noocaad rabto adiga ayaad ka dhigi kartaa. Tusaale ahaan hadda haddaan background-gaas dambe aan ka dhigo madow, bal ka war. Farta madow bay ahayd, background-gina madow baan ka dhigay. Wixii oo dhan marka madow bay isla noqonayaan. Saas oo kale lama ogolo. Si ay waxaada kugu kala muuqdaan waa in farta iyo background-ga aad kala bedeshaa.
saas oo kale markaad dhahdo farta waa muuqataa background-gana wuu muuqdaa. Tan oo kale ka dhigto farta si qurxan bay u muuqanaysaa. Sidoo kale waxaan rabaa inaan ku ogeysiiyo wax walba meeshii laga bedelo ama meeshii laga hagaajiyo unbaad ka bedelaysaa. Hadda qoraalkaas gadaashiisa harkaas haddaad rabto inaad ka qaado background-gaas dambe cagaarka ahaanta ah waa inaad har saartaa kadibna meeshii tagtaa wuu ka qaadmayaa. Haddaad rabto inaad harkii haddana kusoo celiso harka ayaad saaraysaa kadibna kalarkii wuu kusoo noqonayaa. Qodobkanaga saddexaad wuxuu ahaa afraad font color, kalarka qoraalka sida wax looga bedeli lahaa. Isla sidoo kale ayaan saaraynaa kadibna eedaas ayaan tegaynaa kalarka aan rabno ayaan geynaynaa. Qoraalka markii hore waxay ahayd wixii aan bedelaynay background-ga, hadda laakiin qoraalka naftigiisa ayaan bedelaynaa oo fartii madowga ahayd waxaan ka dhigaynaa waxaan ka dhigi karnaa guduud oo kale. Hadda font color ayaan sameynay, farta ayaan bedelaynay, marna waxaan soo sameynay background color, waxaan soo sameynay font size iyo change. Marka kii shanaad baan tegaynaa oo ah bold, sida farta bold iyo italic iyo underline looga dhigo. Isla sidoo kale unbaan haddana sameynaynaa mar walba oo aad rabto inaad wax sameyso qoraalka ayaa hoosta laga qoraalka ayaa har la saaraa kadibna haddaad rabto bold inaad tagto mida ayaad tegaysaa. Bold waxaa weeye in farta yara cayisho ama yara buurbuurto, yara weynaato, madow noqoto. Haddaad kasoo kacdo tan timaadid italic jeef bay noqonaysaa. Haddaad u-daas hoosta ka xariiqan aad tagto waa underline, hoosta ayuu ka xariiqmayaa sida arkayso. Har saaro kadib u-da aan tago waxaad arkaysaa inuu qoraalkan hoosta ka xariiqan yahay. Qoraalkan hoosta ayuu ka xariiqan yahay. Haddaad rabto inaad ka qaadana isla ayadaas unbaad ku dhufanaysaa kadib wuu ka qaadmayaa. Marka bold si aad uga dhigto har ayaad saaraysaa kadibna waad taabanaysaa. Yacni mar haddaad taabato bold bay noqon, haddaad mar kale taabatana waxay noqonaysaa sideedii hore ku noqonaysaa italic. Haddaad taabato italic bay noqon, haddaad haddana taabato nooceedii hore ku noqonaysaa. Haddaad taabato underline bay noqon, haddaad taabato underline bay hadda noqotay, haddaad mar kale taabato underline-ka wuu ka kacayaa. Marka mar walba wax walba meeshii laga hagaajiyey ama laga bedelo ayuunbaa haddana mar kale ka bedeli kartaa. Cashirkanaga caawa 7 intaas ayuu ku egyahay. Inta aynu cashir midkaan oo kale mar kale isugu imaanayno waa anoo idinkaga tegayo sidaas iyo ismaqal dambe oo xiiso leh insha Allah.